wadaha qiimaha badan oo ku soo dhaw muuqaalka xiga ee toosane technical labada muuqaal ee ugu dambeeyay ee soo gelina janaalka waxay ka wada hadlayeen gabi ahaanba sida uu control lahayd wifi-ga guriga kugu jira mid ka mid ah khiyaarta ku xiran janaalka toosane technical ayaan soo weydiiyay su'aal ah sidee baan u bedeli karaa passwordka wifi-ga guriga ee yaala wifi-yada ugu badan ee aan isticmaalno waa wifi-yada ay bixiyaan shirkadda Hormuud iyo shirkadda Somtel labada shirkad ba sida loo bedelayo muuqaalkan ayaan ku tusi doonaa wallow ay ku kala duwan yihiin wadooyinka loo maraya haddii aad danaynayso muuqaalkan adigaan ku duube daawasho wacan marka ugu horeyso sida caadiga ah waxaan gelinaynaa Google Chrome-ka kadib qaybta sare waxaan ku qoraynaa IP address-ka waa 192.168.1.1 si hore u soo marnayba marka inta gelis kadib waxa leedahay go waxa ku soo bixi doona interface-ka Somtel yani kan hadda ku hormarno waa Somtel waa password Somtel markaan bedeleen waa username-kiisa iyo password Somtel-ka aad u fudud yahay korna waxa gelinaysaa admin oo small letters ah ama xarf yar yar ah kora gelinaysaa admin meeshii password-kan waa admin markuu caadiga yahay hadaan la bedelin login alayna marka waa kana interface iskale wax badan soo update gareeyeen kadib waxa leedahay meel ay ku qoran tahay maintenance meesha calaamad ku saaray ay ku dhufanaysaa marka ku dhufto waa kanaba hoos imaw waa new password kadib waxa leeyahay confirm password meeshaas new ku dhufanay kadib marka password cusub agilisid meeshan kala password mar labaad u celinay kadib waxa leedahay save waa intaas on shirkadda Somtel saas ugu fudud yahay hadaan aadno hadana shirkadda Hormuud IP address waa isaga mid 192 gelinay interface-ku uu keenaa meeshii sare waxaan geli jirnay admin aan gelinay meeshan iyadana small letters ah kor way ka sameeyeen kor waxaan gelinaynaa admin hoosna waxaan geli jirnay password-ka Hawaii HUAWEI admin oo loo soo gaabiyay ADM oo ay capital ah login aan leenahay interface Hormuud oo keenaya kadib waxaan tagaynaa meesha qoran tahay home network markaan ku dhufano kadib wuxuu noo keenayaa gacantaada bidix qoraalada ku qorna waxa ka dalbanaysaa meesha qoran tahay WLAN settings marka dalbatid WLAN settings qaybta midig imaaw meeshaas oo qoran tahay WLAN encryption aku dhufanay kadib waa kana ku keenay password-ka meeshan password-ka uu ku jiro oo jeedid aku dhufanay password-ka waa tire midka cusub gelinay kadib waxa leedahay save kana tire kadib waxa leedahay inaan tire maraw inaan ku tusaa intaad markaa tagtid password-ka cusub gashinay kadib waxa leedahay save waa intaas un fadlan haddii aad ka faa'iiday muuqaalka like saar channelka hadda ku cusubtahay subscribe saar inta wixii ka dambeeyo iyo si faraxsanaada